wacano wanaagsan dhammaantiin baa meel kastoo aad inagala socotaanba halkani waa Garaa TV wararkeennana waxaa ugu waaweyn golaha mustaqbalka ee mucaaridka oo ku dhawaaqay inay dib u dhigeen shirki ay ku yeelan lahaayeen magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland una wareejinaya goob kale shirkaasi kadib markii ay ka hor yimaadeen ciidanka dawladda federaalka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Garowe iyo Siciid Deni oo u sheegay ciidamada ammaanka ee maamulkaasi inay u diyaar garoobaan dagaal kaga soo wajahan dhinaca dawladda federaalka Somaliland oo ku dhawaaqday in la soo afjaray colaadii gobolka Awdal ee u dhaxaysay beelaha Ciisaha iyo Gadabuursiga iyadoo soo saadhay go'aamo adag oo lagu xajinayo nabadda dawladda Pakistan oo si cara leh ula hadashay Israel oo si wada isku dayada ay ku fashilinayso xabad joojinta ay garwadeenka ka ahayd Islamabad iyadoo madaxweyne Trump uu u sheegay Netanyahu inuu hoos u dhigo duqeymaha uu ka fulinayo gudaha dalka Lubnaan inta ay socdaan wada xaajoodyada magaalada Baydhabo faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka magaaladaasi Baydhabo oo haatan si buuxda ay gacanta ugu haysa dawladda federaalka ka gadaal markii ay ka cayrisay hogaamiyihii koonfur galbeed lafta gareena iyo albiitaraha Soomaaliga ee Cumar Cartan oo guushii ugu sareysay ka gaaray nidaamka garsoorka ee kubadda cagta caalamka kadib markii uu ka mid noqday dhexdhexaadiyaasha loo xushay World Cup-ka 2026 iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u hambalyeeyay garsoorahani qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbinaynaa haddii Allah awoodda leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal waxaanse ku xasuusinayaa haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalka wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidiintaada oo sariiryaal ah ama dhintay in lagaaga soo cumreeyo qiimo dhimistii ugu ballaarneed weliba $200 oo keliya waxaa kugu samaynaya shirkadda Attaqwa Xaj and Cumra fadlan la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid aan ku bilaabay sida horudhicii baa daawateen golaha mustaqbalka ee mucaaridka ayaa si rasmi ah u shaaciyay in dib loo dhigay shirweynihii ay qorsheynayeen inuu qabsoomo 10 Abriil 2026 kaasoo loo ballansanaa inuu ka dhaco magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland war-saxaafadeed ka soo baxay golaha mustaqbalka ee mucaaridka ku ah dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in dib u dhigistani ay timid kadib qiimayn iyo diyaar garow dheeraada oo loo arkay inay muhiim u yihiin guusha shirka iyo natiijooyinka laga fili karo golaha mustaqbalkuse waxa uu sheegay in weli ay ka go'an tahay dhankooda qabashada shirweyne mideeya bulshada Soomaaliyeed islamarkaana horseeda wadahadal miradhal ah oo wax ku ool u ah mustaqbalka dawladnimada Soomaaliya golaha mustaqbalka waxa weli ka go'an wadahadal loo dhan yahay horumarinta isafgaradka qaran iyo in dalka laga badbaadiyo qalalaasa siyaasadeed iyo firaaq dastuuriyaha ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka uu soo saaray golahan oo ay ku midaysan yihiin xubnaha madasha samata bixinta ee fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho iyo hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyaguna mucaarid ku ah haatan dawladda goluhu waxa uu cadeeyay inay muhiim tahay in shirka loo qabto si hufan loogana soo saaro go'aamo micno leh oo wax ka tari kara xaaladda siyaasadeed iyo is-afgaradka qaran ku dhawaaqista dib u dhigista shirweynahani waxay imaanaysaa xilli goluhu uu haatan shirar goosgoosa ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kuwaasoo lagu falanqeynayo ajendayaasha muhiimka ah ee shirweynaha iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ku dhawaaqistani waxay imaanaysaa iyadoo maalmo ka hor Jimcaale Takar oo ah sargaalka ugu sareeya ama xukuma ciidanka danab ee dawladda federaalka oo fadhigoodu uu yahay gobolka Nugaal ee Puntland uu sheegay
in shir ka dhanaha dowladda federaalka aan lagu qaban karin magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. jenaraal Jimcaale ayaa sheegay in xaaladaha amni ee haatan jira aysan saamixi karin in shirweyne noocaasi uu ka dhaco magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland oo ciidankiisu ay fariisimo ku leeyihiin, waxaana uu tilmaamay intaasi aanay ogolaan karin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu amniga mas'uul ka ah sida uu hadalka u dhigay. hadalka ka soo yeeray sargaalkan oo horay ay dhowr jeer iskugu dhaceen hogaamiyaha Puntland Siciid Deni ayaana cabsi iyo walwal ku tuuray Siciid Deni, waxaana uu bilaabay in uu sameeyo ololo la xiriiraha dhanka ciidamada ammaanka ee Puntland si uu kaga hortago in sargaalkan dowladda federaalka ka amar qaata uu joojiye qorshayaasha Puntland ee lagu mucaaradayo dowladda federaalka. ciidanka uu wato jenaraal Jimcaale oo horay u ahaa ciidamo beeleed aad u hubaysnaa kana soo jeeda gobolka Nugaal ayaa dhowaan waxaa qarameeyay dowladda federaalka, kuwaasoo imika si toosa u hoostaga wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. xiriirka dowladda federaalka iyo ciidankan ayaana sii xoogaystay markii ay tageen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanadkii hore si ay u sugaan ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u tagay magaaladaasi caleemasaarka hoggaanka cusub ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya. sida warbaahintu ay ka soo xigatay ila xogogaalaha ku dhow golahani, waxa uu imika qorsheynayaa in goobta shirka laga wareejiyo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, maadaama halkaasi ay joogaan ciidamo xooggan oo ka amar qaata dowladda federaalka. waxaana sida wararku ay tilmaamayaan ay tahay shirkaasi in loo wareejiyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, taas oo ah magaalo ay gacanta ku hayaan laba maamul oo kala ah Puntland iyo Galmudug oo kala maamulaya waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. hase ahaatee sida muuqata shirkan waxa uu ka qabsoomi doonaa dhinaca waqooyiga ee Puntland, taasoo ka dhigan in Siciid Deni uu ammaan bidayo halkaasi, maadaama aanu xilligani shirar ku qabsan karin magaalooyinka kale ee muhiimka ah ee Puntland sida Boosaaso iyo Garowe, halkaasoo ay joogaan ciidan ka mushaar qaata dowladda federaalka hoostagana wasaaradda gaashaandhigga. dhanka kale hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo hadda ay ka muuqanayso inay ku siyaaday cabsida iyo walwalka uu ka qabo ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan deegaanada maamulkaasi, ayaa waxa uu bilaabay inuu si adag ula dardaarmo ciidanka ammaanka ee maamulkiisa, sidoo kalena saraakiishooda uu ku dhaariyo inay isaga daacad u yihiin. madaxweyne Deni oo wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalku ay la wareegtay magaalada Baydhabo kordhiyay dhaqdhaqaaqiisa dhinaca ciidamada iyo kumilankiisa, ayaa saacadihii u dambeeyay tababar u furay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland, gaar ahaan guutada saddexaad ee ka howlgasha buuraleyda Calmiskaad. madaxweyne Deni ayaa hambalyo u diray ciidamada Puntland guushii ay ka gaareen howlgalka Calmiskaad oo uu sheegay inuu marayo meel gabangaba, wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqay in dowladdu ay xoogga saarayso tayeynta iyo horumarinta ciidamada difaaca u ah dadka iyo dhulka Puntland sida uu hadalka u dhigay. Deni ayaa xusay in Puntland ay isku filan tahay dhinaca amniga, isagoo sheegay in ciidamadani ay tusaale u noqdeen dalal kale, gaar ahaan marka la eego dagaalka lagula jiro argagixisada. madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay ku guuldareysatay dagaalka ay kula jidha kooxaha argagixisada, hase ahaatee Puntland ay muujisay cududeeda iyo kartida ay u leedahay iska dhicinta argagixisada, maadaama uu sheegay inay muddo dhowr bilood ah iyadoo aan taageero ka helaynin federaalka ay si adag ugula dagaalantay argagixisada buuraleyda gobolka Bari.
dhinaca kale madaxweyne siciid deni oo la hadlayay ciidamadaasi waxa uu u sheegay inay diyaar ahaadaan maadaama uu dalka Soomaaliya uu galay qalqal siyaasadeed cid kasta oo isku dayda in ay soo aadana ay sidii calmiskaad Puntland u dhigi doonto casharo adag taasoo muujinaysa cabsida weyn ee hogaamiyaha Puntland uu ka qabo xilligani duulaan ay ku qaado dowladda federaalka si la mid ah koonfur galbeed. hagaag saaxiibayaal shabakada Garaad TV ayaa toos inooga daawanaysaan. xukuumadda Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in si degdeg ah loo soo afjari doono shaqaqooyinkii soo noqnoqday ee u dhaxeeyay beelaha ku dhaqan gobolka Awdal ee ciisaha iyo gadabuursiga iyadoo ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo nabadgelyada gobolka. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu si weyn uga xun tahay dagaalada beelaha ee mararka badan soo laalaabtay islamarkaana ay ka go'an tahay dowladda in si kama dambaysa loo xalliyo wuxuuna u mahad celiyey odayaasha labada dhinac oo ku dhawaaqay nabad isaga oo ku booriyey in heshiiskani si dhab ah loo fulinayo. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu cadeeyay in nabaddu ay tahay mid go'an islamarkaana cid kasta oo ka hortimaada la marsiin doono tallaabo sharciga waafaqsan. wuxuuna sidoo kale tilmaamay in Arbacada soo socota la soo gabangabayn doono dhammaan dadaalada nabadeynta ee ka socda gobolada Awdal iyo Salal. dhanka kale waxaa la faray in maleeshiyaadka hubaysan ee labada beelood ka tirsan ay u guuraan goobo cayiman iyadoo la sheegay in kuwa doonaya inay ku biiraan ciidanka qaranka la qaadi doono. waxa uuna xusay in wixii ka dambeeya maalinta Arbacada aan la ogolaan doonin cid hubsidata oo ka baxsan nidaamka dawliga ah ee Somaliland. dhinaca kale ciidamada ammaanka ayaa la faray in ay si adag uga howlgalaan hirgelinta go'aanada nabadda ee odayaashu iyo dowladdu ay wada gaareen iyadoo lagu amray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo diida awaamiirta xukuumadda iyo talooyinka odayaasha dhaqanka halka booliska lagu adkeeyay sugidda ammaanka magaalooyinka gobolka Awdal. colaadani oo galaafatay dad badan ayaa ka socotay in muddo ah galbeedka Somaliland halkaasoo ay ku dirirayeen beelaha ciisaha iyo gadabuursiga oo la sheegay in dhinacyo shisheeye ay qaarkood kulaynayeen. waxaana xiisadani ay ka soo bilaabatay lahaanshiyaha magaalada taariikhiga ah ee Saylac halkaasoo beesha ciise ay doonaysay inay ku xusto buugga xeer ciisaha ee ay aqoonsatay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO taasoo ay ka soo horjeesatay beesha gadabuursi ee degan inta badan gobolka Awdal een sheegtaynaha in xuska buuggaasoo lagu dhiga magaalada Saylac ay ka dhigan tahay in ay ciisuhu sheeganayaan lahaanshiyaha magaaladaasi. arrintaasi waxaa ka dhashay khilaaf sii xoogaystay kaasoo sababay in labada beeloodba ay hubka isku gurtaan xilliyo kala duwan ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka iyadoo Somaliland ay waqti dheer culays ka wajahaysay arrintani xalna u la'ayd inay soo afjarto. waa tahay gobolka bariga dhexe haddii aynu eegnana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Bakistan Khawaja Asiif ayaa si adag u dhaliilay maamulka sahnuuniyadda Israel isagoo ku tilmaamay shar iyo balaayo ku dhacday aadanaha dunida xilli ay sii socdaan weerarada ka dhacaya gudaha dalka Lubnaan. hadal uu jeediyey oo ay baahisay warbaahinta ayaa Asiif uu ku sheegay in Israel ay weli wado duqeymo iyo dilal culus oo ka dhacaya gudaha dalka Lubnaan iyadoo ay jiraan dadaalo lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin iyo wada hadallo nabadeed. wasiirka ayaa sidoo kale muujiyey walaac xooggan oo ku aadan saamaynta bini'aadanimo ee ka dhalan karta weerarada isagoo ugu baaqay beesha caalamka inay qaado tallaabo degdeg ah si loo joojiyo colaadda sii huraysa ee gobolka bariga dhexe.
hadalkani ka soo yeeray dowladda bakistaan oo ka muuqday mid cara ay ku dheehan tahay waxa uu imaanayaa xilli ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ah ee la saaraya israa'il iyadoo dalal badan iyo hay-ado caalamiya ay ku baaqayaan inay joojiso dagaalka ay ka wada gudaha dalka lubnaan kaasoo ay aad u xoojisay maalmihii ugu dambeeyey markii ay soo baxeen baaqyadani madaxweynaha maraykanka trump ayaa sheegay inuu la hadlay ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu islamarkaana uu ka codsaday in la yareeyo duqaymaha ka socda lubnaan trump wuxuu sheegay in netanyahu uu xaqiijiyey in howlgallada la dejin doono oo la dhimayo trump ayaa hadalkani sheegay xilli uu waraysi kooban siiyey a b c news isagoo xusay in xaaladda loo baahan yahay in si deggan oo taxadar leh loo wajaho dhanka kale trump wuxuu horay u shaaciyey xabad joojin 2 toddobaada oo u dhexaysay maraykanka iyo kadib muddo bil ka badan oo uu socday dagaalka gobolka ee u dhexeeyey xulafada isgarabsanaya ee maraykanka iyo israa'il iyo dowladda iiraan dhinaca kale qaar ka mida dalalka khaliijka ayaa kaabayaashooda tamarta waxaa la sheegay in weeraro lagu qaaday kuwaasoo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn iyo gantaallo halka dowladda iiraan ciidankeeda ilaalada kacaankuna ay sheegeen inaanay wax luga ku lahayn weeraradaasi maadaama ay sheegeen inaanay jirin wax weeraro ah oo ay qaadeen ciidankoodu tan iyo markii la dhaqangeliyey xabad joojinta waa tahay aanu gudba wararka kale ee faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalo goosgoosa oo duleedka magaalada baydhabo ku dhex maray ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ee shabaab wararka laga helaya magaalada baydhabo ee koonfurta galbeed ee Soomaaliya waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay bilaabeen howlgallo roondooyin iyo amni sugid ah oo ay ka samaynayaan deegaanada duleedka magaalada baydhabo si ay khatarta uga fogeeyaan caasimadda kumeel gaarka ah ee maamulka taasina waxay keentay inay halkaasi kala kulmaan iska hordhimaad iyo ay la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda argagixisada ah ee shabaab oo horay u kulaalaysay magaalada caasimadda kumeel gaarka u ahaa maamulka koonfur galbeed ee baydhabo saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in dhowr dagaal oo qaraar ay kula galeen deegaano ku yaala duleedka magaalada baydhabo oo aan ka fogeyn maleeshiya ka tirsan kooxda argagixisada ah ee shabaab islamarkaana hadda ay aad uga riixeen ciidamada ammaanku deegaanadii ay ka dhaceen dagaaladaasi argagixisada lagana fogeeyey khatartooda dhowaan markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka degay magaalada baydhabo tiro hoobiyaala ayaa argagixisadu ay ku tuurtay ayri boorka shaati gaduud ee magaalada baydhabo taasoo khatar gelisay wafdiga madaxweynaha iyo amnigooda waxaana la sheegay in horay meelo aad ugu dhow caasimadda kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ay u joogtay argagixisada shabaab haddase ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ah ay isku dayayaan inay khatarta argagixisada aad uga fogeeyaan magaalada baydhabo oo la filayo inay martigelisa doorashooyinka madaxda cusub ee maamulkaasi waa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan kadib markii uu noqday garsoorihii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo ka qayb gala tartanka caalamiga ah ee FIFA World Cup garsoore Cartan ayaa dhigay taariikh cusub isagoo noqday garsoorihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee lagu daro liiska garsoorayaasha hogaaminaya tartanka koobka adduunka ee 2026 kaasoo lagu qaban doono dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico FIFA ayaa si rasmi ah u shaacisay liiska garsoorayaasha waxaana magaca Cumar Cartan uu ka soo dhex muuqday kuwa ugu sarreeya ee Afrika ku matalaya masraxa caalamiga ah madaxweynaha ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray garsooraha waxaana uu u rajeeyay in uu gaaro guulo kale oo muhiima isaga oo ku tilmaamay tallaabadani mid taariikhiya oo sare u qaadaysa sumcadda dadka Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo